بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا شركة جرائد إن مانتا وجهدلنا هشيسكي هي جارين دولة فدرالكا هي دولة جولادة كأدنى أرمها دور شوين كلابكون لباتن لبكون إيكوي لباتن إن كستو هدي أنا حزبية سياسية عن كل حين كالنتي عن كمدنين هشيسكاس أو تلدي سكو أدن haddana talooyinkii aan qabnay ee hore aan u soo gudbinay gaaraan daana xisbiga wadajir oo aan qoraal kula wadaagnay muddo laga joogo 2 usbuuc ka hor in intiisii badneed la tixgeliyay waxa muhiimkaana ay tahay in taradeena la tixgeliyay aad iyo aad aan marka hore u soo dhaweynaynaa heshiiska waxaan leenahay waa heshiis badbaadiyay dhibaato Soomaaliya ku soo wajahneed oo ku aadaneed maareynta xilliga kala guurka ah waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxda dawlad goboleedyada oo runtii u dhabar adeegay in heshiiskaas la gaaro kaalmo kala duwan ka qaatay u soo dhabar adeegay u soo sabray ugu dul qaatay deelqaaf kasta oo kaga imaanayay filla Soomaaliya intaba si ay u xaqiijiyaan guusha ah in xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya oo si nabad ku dhaco kaasay soo food saartay halis dadka Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku howlanba iyo beesha caalamka u muuqatay waxaan dhahaynaa marka madaxdaas waa mahadsan yihiin in ay ka guun gaareen guushaas dhammaantood annagoo kala reebina waxa u mahad celinaynaa kaalintaas iyada ah waxaa runtii aad xushmad darro ahaa horena u dhacday shirkii Dhuusamareeb 2 markii la soo gabagabeeyay oo ay madaxda dawlad goboleedyada ku sharfeen madaxweynaha hadalka ugu dambeeyo inuu yeesho amaan inay u soo jeediyeen wixii uu ku hadlay Soomaalidu hore u dhageysatay haddana asagoo marti loo yahay filla Soomaaliya jooga inuu deelqaafkii aad maqasheen oo dadka Soomaaliyeed idil ay maqleen oo ku hadlay aad iyo aadan uga xunnahay hadalkaasna ma ahayn hadal u qalma cid mansabka ugu sareeya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysa waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis maalina doorasho qof iyo codna ma doonin mana aha in lagu marsiyoodo waxaana jirin oo shaqadeeda aan la qabanin waxaan dhihi karnaa ku celcelinta oo madaxweynaha ku celcelinaya doorasho qof iyo cod ah waxa wixii la oran jiray kalimatu xaqin urida biha albaadil ay ahayd hadal xaq ah laakiin loola jeedo xumaan iyo baadil loola jeedo ayuu ahaa dadka Soomaaliyeedna way u cadeed inta siyaasadda ku howlanay way ogeed maalinna madaxweynaha inuu doorasho qof iyo cod ka shaqeynin wax allaale wixii ay mudneed doorasho qof iyo cod in la qabtana tilaab oosan u qaadin hadday tahay dhinaca sharciga hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinac oo tilaab u qaad hadday tahay dhinaca farsamada intaba ayadoo taas la ogaa inuu iska dhigo nin tanaasulay oo ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah oo inta kalena ay diidaneed oo iska dhigo kaligiis oo garamo waliba madashii hadalkeedii gunaadka la sii ku garamo oo yiraahdo waxaan ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah dastuurkan ilaalinayay sharcigan dhowraayay taas dadka Soomaaliyeed oo cadahay laakiin kaliya waxa soo baxday inuu mansabka iyo qofka hadlaaya islahayn taas baa meeshaas ka cadaatay iyo maqaamka uu ku fadhiyo intaba inuusan ixtiraamin mar kale annaga cudurdaar siinayna madaxda maamul goboleedyada macnii hadalkii deelqaafka lahaa ee gogashaas madaxweynaha uu ka yiri waxaana ka rabnaa madaxda inaysan Muqdisho ka tagin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa inta baarlamaanka la marinayo baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu madaxweynaha dhamaaday 2 bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado sidaas daraadeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas'uuliyadana xaqiina loo soo laaday inaa idinku eedda qaadin mas'uuliyadda fashalka dalka in doorasho qof iyo cod laga qabto xukuumadda ayaa iska lahayd
dowladda uu madaxweynaha hogaaminaya ayaa iska lahayd sidaas daraaddeed idinku inaadan wax mas-uuliyada fashalkaas aadan qayb ka noqonina una diyaar garoodaan dalka inuu doorasho u dareero oo wax caqabada aad ku noqonina heshiiskaas isaga ah yaan ka rajaynaynaa baarlamaankana waxaan rabaa in dhowr qodob kale aan meeshaan taabto kow waxaan u baahannahay in si cad ama furan looga wada hadlo arrimaha amniga doorashada waxaan ognahay hay-adaha amniga ee dowladda sanadii lasoo dhaafay waxay ahaayeen hay-ado dana siyaasadeed u adeega madaxda dowladdan ay adeegsato khaasatan taliska nabad sugidda sidaas daraaddeed waxaan rabnaa halkan inaan ka dalbanno in lagu sameeyo dib u habeyn taliska nabad sugidda madaxweynaha haddii uu tanaasulay wuxuu tanaasulay hadduu ka tanaasulay waa extensionkii iyo muddo kororsigii tanaasulkiisa waxaa tilmaam u ah caddayn u ah inuu dib u habeyn ku sameeyo inta ka dhiman mandatekiisa hay-adda nabad sugidda iyo taliska nabad sugidda oo caadaystay inuu ku dhex milmo siyaasadda oo ay tallaab ka gedi waayeen ka shiri waayeen saxaafaddii ka dhaqaaqi weysay siyaasiyiintii ka dhaqaaqi waayeen markii loo isticmaalay inay tahay hay-ad siyaasadeed ay noqotay shaqadii loogu talagalo la dagaalanka argagixisadana ay gabtay sidaas daraaddeed madaxweynaha hadduu daacad yahay oo aan tilmaamaha aan ka sugayno waxaa ka mid ah oo tallaabooyinkiisa tanaasulka ah u ah caddayn inuu taliska nabad sugidda dib u habeen ku sameeyo xilka iyo mas-uuliyaddana dad professional ah oo karti iyo aqoon u leh kana dhexdhexaadna u ah dadka siyaasiyiinta inuu geeyo taas ayaa tilmaam u ah in haddii uu daacad ka yahay waxa uu sheeganayo waxaan kaloo dalbanaynaa in somalilan doorashadeeda loo madax banneeyo dadka deegaanahaas ka soo jeeda siyaasiyiin bay leeyihiin dad ku matala talada dalka ayay leeyihiin odayaal rugcadda ah oo dhaqan iyo siyaasiyiin laba way joogaan dalka khaasatan magaalada muqdisho in meesha la doonayo in la dhaco ama la boobo waa garanaynaa waa doorashada ku aadan xubnaha baarlamaanka ka soo gelaya somalilan sidaas daraaddeed arrintaas waxaan u baahannahay in ay noqoto arrin lagu wareejiyey mas-uuliyaddeeda dadka deegaankaas ka soo jeeda ayaguna ay maamushaan oo ay maamulkeeda ayagu ay yeeshaan arrintaasna waa arrin aan indhaha ku hay doono oon har iyo habeen aan daba taagnaa doono jihooyinka ay qusaysana aan kala hadlayno sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaha ka soo jeeda somalilandna codkooda in la maqlo oo ay caddaystaan annagana wixii garab aan sii karno oo talo ah iyo tusaaleyn ah iyo xiriir ah iyo kaalmo ah waxaan diyaar u nahay inaan siino ma doonayno in la boobo doorashooyinkooda ama xildhibaanadooda ka soo gelaya meesha in la boobo ma doonayno runtii waxaan kaloo rabnaa in la caddeeyo dowlad goboleedyada labada deegaan ee ka dhacaysa doorashada hadda in la caddeeyo si ay dadka u diyaar garoobaan waxaan rabnaa dalka in loo jiheeyo doorashada in la yidhaa waxaa la yidhi qorshaha doorashada wuxuu bilaabmayaa November dad badan baa isku qaldo u qaatay in waxa November bilaabanaya ay tahay doorashada laakiin sida cad waxa November bilaabanaya waa qorshaha doorashada waxaan dalbanaynaa doorashadu in December bilowgeeda ka daba dhicin si 27 December uu ku eg yahay mandate-ka baarlamaanka arrintaas loo gaarsiiyo sidaas daraaddeed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay caddeeyaan deegaanada ay ka dhacayso doorashada labada goobood ah sidoo kale iyaga dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha magacaabanba waxaan ka codsanaynaa ayagana in ay u dhaxeeyaan dadka musharaxiinta ah madaxweynaha sida ogtihiin waa musharax doonaya re-election ama in dib loo doorto dad kale oo musharaxiin oo annaga aan ka mid nahayna way jiraan sidaas daraaddeed inay u dhaxeeyaan musharaxiintaan ka rabnaa oo ay xildhibaanada la soo xulayana si xor ah oo xalaal ah ay doorashada ugu baratamaan dadka kale oo u tartamaya xilka sare ee dalkana fursad loo siiyo oo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada madaxda dowlad goboleedyadaba ay u dhaxeeyaan tartanka doorashadan rabnaa madaxweynuhuna waa nin u tartamaya xilka mar kale sidaas daraaddeed xaq dheeri ah iyo xuquuq dheeri ah inuu ku yeelanin waa waxa aan ka sugayno runtii ra'iisul wasaaraha magacaaban iyo madaxda maamul goboleedyada intaba sida ogtihiin shacabka Soomaaliyeed 2017kii caadifad ayaa wax lagu doortay doorashadii caadifadana waxaa ka dhashay waxa aragteen 4 sano oo dalkan taladiisii runtii lagu sigtay in halis oo galo oo dib ugu noqdo waxyaalo oo ka soo kabsaday sanado hore in baabuurka geedi socodka
ama gaariga geedi socodka dhismaha dowladda iyo dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya si gaabis oo ku soo socday laakiin sanad 4 sano la soo dhaafay waxaa la dareemay gaariga inuu qallimi doono ama qallimi karaba ama oo gudoomi kara ayaa la dareemay halistaasna waxay ku timid in si la kaca oo caadifad ah loo cimaamaday cid aan mas'uuliyaddan ka bixi karin sidaas daraadeed marxaladda soo socota isteegana wuu sareeyaa wayna badan tahay halista ku gadaaman sidaas daraadeed waxaan rabnaa hadda ka bacdi dadka la tuunsan yahay in aragti fadhisa leeyihiin inay dalkan xeeri karaan mas'uuliyadiisa inay qaadi karaan xilkiisa in laga fiirsado doorashada soo socdo oo taas ay tahay mid wax lagu dooranayo ayaan rajaynaynaa oo mar kale caadifad iyo xamaas iyo waxaas laablakac oosan mar dambe naqaadin halista uu leeyahayna waa loo jeedaa waxaan rabaa gunaanadkii inaan runtii ku bogaadiyo mar kale dowlad goboleedyada guusha ay keeneen waxaan kaloo ka doonaynaa madaxweynaha waxa uu ka tanaasulo waa doorasho extension waaye ma aha ama waa muddo kororsi ma aha doorasho qof iyo coda sidaas daraadeed tanaasulkiisa u sii cadaadana waxa laga rabo inuu fuliyo ayaa laga rabaa waxaan kaloo dalbanaynaa in gudiyada doorashada si dhaqso ah loo soo magacaabo dhinacyada ay qusaysaba sababtoo ah waqti harsan ma jiro lagana talageliyo dadka doorashada ay qusayso oo ku tartamaya kuraasta xildhibaan iyo kuwa madaxeed intaba lagana foojignaado runtii dalkan in bursi dambe oo doorasho laga sameeyo oo la isku dayo qofka xilka uu hayo inuu ku abuse gareeyo ama ku takrifalo oo awood ugu sheegto dadka tartamaya kuraasta sababtoo ah waxaan soo aragnay sanado badan oo isxigxiga dad madaxa ama haday dowlad goboleed tahay ama dowladda federaalkaaba inta kuraas soo boobay soo dhacay wax ay ku heleen aysan jirin marka inay dadka madaxda ka xigaan sharafta iyo karaamada iyo daacadnimada iyo u dhaxaynta inay tahay waxa qofka sharafta u yeelaya taas in la ogaado walwalkana laga saaro xildhibaanada oo aanan loo hanjabin lana handadin loona sheegan in loo takrifarayo kuraastooda ay ku tartamayaan siday naftooda u helaan kalsooni ay doorashada qayb uga noqdaan waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh